shalay toole iyo maanta haddana inaan taa aqbalo waxa keentay qiimaha madaxweynuhu uu leeyahay iyo culayskiisa iyo qadarintiisa runtii shirarkii jaraa'id horena kaga hadlay marka waxaan aqbalay inaan agaasimihii guud hayo istiqlaaladii iscasilaadda madaxweynuhu iga diiday iyo inaan xisbigaygiiba ahaado oo xubinimadiisa ahaado golaha dhexe iyadana madaxweynuhu wuxuu yidhi kaamaan yeelinay waana labadabana waa inaad wado waan ka aqbalay waana wadayaa biidin ilaahay saaxiibadaydii cusbaana waxaan leeyahay wadanina insha Allah dib guul baa idin rajaynayaa insha Allah idinkana halkiina Allah idin khayr laakiin anigu halkaygii baan insha Allah maadaama muddaduna kooban tahay runtiina aan shirarkii jaraa'id ku sheegin inaan wax khilaaf aniga iyo gudoomiyaha xisbiga naga dhaxayn mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha taasi waxay noqonaysaa markaa inaan insha Allah haddii alla ka dhigo halkaygii baan ka wadayaa hadday xil tahay iyo hadday xisbinimo tahay marka koowaadna waxaan mahadnaq ballaaran halkan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud waxaan madaxweynaha la soo shaqeeyay muddo dheer oo 7 sano ah meeyarku waa la shaqeeyay banasaabku waa la shaqeeyay